Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, waxaan idinla wadaagi doonaa dhowr qodob oo kaa caawinaya inaadan waqtiga iskaga lumin si macno darro ah. Waqtigu waa waxa ugu qaalisan ee uu qofku haysto inta uu nool yahay, waana raasamaalka ugu faa'iidada badan haddii si wanaagsan looga faa'iideysto oo loo qorsheeyo. Waxa kaliya aad u baahan tahay waa inaad ka taqallustid 4 shay si aad u joojisid khasaarinta waqtiga. Jooji booqashada badan ee internetka. Waxaa marka kasii dambaysa fududaanaya booqashada internetka sababtoo ah waxaan noqonay dad qabitamay isticmaalka internetka. Sidaas darteed waxaa muhiim ah mar haddii aad booqanayso internetka inaad isku daydid inaad ka soo dhamaysatid wax walba aad uga baahnayd si aanad hadhow ugu laaban adigoo fiirinaya ama raadinaya wax aad markii horeba fiirin kartay. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaad xadidid xilliyada aad fiirisid inuu email ama fariin ay ku soo dhacday in kale. Waa muhiim inaad waqti u yeeshid fariinta emailada iyo ka jawaabida fariimaha lagu soo diray sida subaxdii, duhuradii ama fiidkii ama waqti ku gaar ah. Kaliya muhiimadu waa inaad yareyso waqtiga badan ee aad ku luminayso booqashada internetka. Jooji qorshe la'aanta. Dadka inta badan waxay bilaabaan maalintooda ayagoon wax qorshe ah u sameysnayn oo aan garanayn waxa ay qabtaan iyo meel ay ka bilaabaan intaba. Sidaas darteed waxaa u sahlan inay garan waayaan waxa muhiimka u ah iyo waxa kale ee aanan muhiimka u ahayn. Run ahaantii waxa kaliya aad u baahan tahay waa daqiiqado yar oo ku sameysid liiska shaqooyinkaaga kuwa muhiimka ah ee aad wajihi doonto maalinta. Fadlan sameyso jadwal maalinle ah, soo qaado buug yar ama xitaa ku qoro telefoonkaaga qaybta note-ka ah ee lagu qorto qoraalada oo ku qoro qorshaha maalintaas iyo xilliyada aad qabanayso. Marka aad sameysid qorshahaaga subax kasta ama maalin walba, waxaad guul weyn ka gaaraysaa qabsamida ama qabsoomida howlaha aad u baahan tahay iyadoo waqti kaaga lumin micno darro. Ha ogolaan in howlahaaga laga soo dhex galo. Xaqiiqadu waxay tahay waxaa jira dad u furfuran in laga jeediyo qorshahooda ama laga soo dhex galo howl ay haystaan. Ma aragtaa ama marka qaarkood adigoo sameynaya howl ama ku guda jiro howl inuu saaxiibka ama dad kale ay ka soo dhex galaan kadibna u weecata xaggooda. Waxaa suurtagal ah inaad adiga raalli ku tahay in laga jeediyo hawshaada, balse waxaa muhiim ku ah inaad ka hortagto arrimahaas oo kale marka aad sameynayso howlo ku muhiim ah. Waxaadna uga hortagi kartaa inaad waqti gaar ah u yeesho la sheekaysiga iyo la hadlidda saaxiibadaada, inaad iska xirto internetka, mobilka inaad iska fogeyso iyo wixii la mid ah. Muhiimadu waa inaad sameyso wax kasta oo aan ku ogolaanaynin in laga jeediyo howlahaaga. Waxaa macquul ah xilliyada qaar inay ku qabsadaan howlo degdeg ah ama emergency ah. Markaas waa muhiim inaad ka falceliso arrimahaas, balse wax aan muhiim ku ahayn marnaba ha u jeesan oo waqtigaaga si maalayacni ha ugu dhumin adigoon dhameysanin howlahaaga gaarka ah. Jooji dib u dhigista qabashada shaqooyinkaaga. Oraah ayaa dhahaysa waxaad maanta qaban karto berri ha u dib dhigin. Waana oraah cajiib ah, run ahaantii tilmaamaysana inaadan dib u dhigin wax aad qaban karto waqtigan ama hadda. Markasta oo aad waqti ku lumisid howl aan muhiim ku ahayn, waxaad dib u dhigaysaa qabashada howl muhiimad ku leh. Sidaas darteed fadlan jooji dib u dhigista iyo ku mashquulida howlaha aan macnaha ku lahayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.